halkani waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana madashani ay kulmisay lamaanayaal tiro badan iyo dhalinyaro kale oo xiriir jacayl ka dhaxeeyo waxaanay doonayeen inay ka mid noqdaan lamaanayaashii hore iskugu maamuusay buugga midabkiisu yahay casaanka ee loo magac baxay hadiyad jacayl waana munaasabad kale oo la mataana ah munaasabad hore uga dhacday magaalada Hargeysa kaasoo lagu daafuray toddobaadkii hore buuggani madasha oo bilowgii horeba lamaanayaashu ay u soo gaadhayeen si xigta ayaa waxa dhalinyarada iyo lamaanayaasha cawaysiinkani gaarka uu ahaa ku madadaalinayay suugaan kala duwan jawiga goobtuna waxa uu ahaa sidani adaadhay mani qalbiga dhayo dhabtii quruxdaada wala dhaco midku dhigataan dunida dhalano qofku la dhabanaan wali dhugane Tawil waxaad tahay dhamaystu maro xulba tahay dheer dhiga sharfe Tawil waxaad tahay dhamaystu maro xulba tahay dheer dhiga sharfe miyaan doorsanay qofku la dhigayaa qurca qali hadleheeda ninka loo qoreela qurca qali hadleheeda كحرية ديواتيو وان هو إنو دافي غير كيسا lamaanayaal kala duwan oo isku hadiyadeynaya buugga hadiyad jacayl iyo kuwa iyagu ka duwan sidii hore iskugu maamuusaya buuggani ayaa madasha lagu arkayay intii ay socotay markii ay dhamaatay madashani ayaa waxaan wareysanay qoraaga buugga hadiyad jacayl Cabdisamad Awdaahir waxaanu ka waramay sida ay u dhacday munaasabadu runtii xafladan waxay daba socotay xaflada aan ku qabanay Hargeysa kowdii bishii labaad oo ahayd habeen sabti ay soo galeysay halkan waxaan ku qabanay 8 cisho ka bacdi aan burcanimid runtii buuggan wuxuu noqday buug dadku ay xiiso gaar ah u qabaan sida ay lamaanayaashu ay tahay mid ay sugayeen oo laga maarmay halkii ubaxa la gelinayeen buuggan dadku isku hadeedeeyaan marka burcaanu nimid iyadoo gobol kale soo dalbadeen oo ay damceen in buugga loo keeno nasiib wanaag waqti wuxuu nagu sameeyay burcaan nimaadno aan bandhig ku qabanno runtii caawa si macaan oo qurux badan bay muxuu ahaa ay reebra uga jawaabeen kalgacalka iyo jacaylka buugga ku dheehan si fiican oo kaliya laabay xafladda noogu qabsoontay lamaanayaashii kala duwanaa ee isku doonsiiyay hadiyad jacayl isla markaasina ku caweeyay munaasabadani ayaa dhankooda TV-ga Universal waraysiye kala duwan uu ka qaaday waxaanay dareenkooda ku cabireen sidani alxamdulillaah rabbil caalamiin caaw farxad gooni bay tahay xaaskaygii oo muddo hal sano iyo dhowr bilood aan qabay inaan caaw halkan ku wada caweyno oo aan guddoonsiiyo buugga hadiyad jacayl oo qof aan aad u jecelahay oo qof aan ixtiraam iyo qadarin u hayo mar walba waxaan ugu yeedhaa noloshaydii farxadaydii raaliyadeydii xaaskaygii quruxda badnayd iyada dunidaba ugu wanaagsan marka in jacaylka la kobciyo oo sare loo qaado waa soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo buuggan hadiyad jacayl ma qiyaasi karo dareenkayga aad baan faraxsanahay waxaan farxad aan inaba caadi ahayn oo aad u sareysa aan la wadaagayaa xaaskayga iyo marwadeedan aad ka jecelahay anagoo ka soo qayb galay bandhigga buugga aadka u qiimaha badan ee la magac baxay hadiyad jacayl runtii anigiyo gacalada aan aad u jecelahay waxay noo tahay dareen gaar ah inaanu halkan kula qaadano ninka dhalinyarada ah ee qoray buuggan waxayna tani noo muujinaysaa dhiirigelin noogu tahay sida jacaylkii aanu anagoo dhalinyaro muddo soo wadnay aanu ka midho dhalinay maasha Allah si guulana noogu midho dhalay inaanu haddana halkii ka sii wadno oo si 2 jibaarno si 3 jibaarno si 4 jibaarno buuggan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn loogu hadalhayay baraha ay bulshadu ku kulmaan